kulan wacan daawadayaal waa muuse xushow waxaad kusoo dhawaataan falanqeynada isku duuban ee kulan ciyaareedyo laga ciyaarayo horyaalka premier league ingiriiska oo maanta dhacaya. Ciyaaraha dhacayana ee aan falanqeyntan idinkugu soo gudbinayno waxaa ku jira kulanka dhex mari doona kooxaha Brentford iyo Manchester City, Chelsea oo soo dhaweyneysa kooxda Bournemouth iyo weliba kooxda Nottingham Forest oo marti qaadaysa kooxda Liverpool. Waana kooxda keliya ee Nottingham marka la eego ka badisay ciyaaraha horyaalka kooxda Liverpool horyaalka wadanka Ingiriiska. Haddaba waxaanu ku bilaabeynaa kulan ciyaareedka xiisaha leh ee u dhexeynaya kooxaha Brentford iyo Manchester City. Kooxda Brentford ciyaaryahankeeda Rico Henry ayaa markiisii ugu horeysay ciyaar Premier League ah kasoo muuqan kara tan iyo September 2023 markaas oo xidigani uu muddo dhaawac dheer qaatay kaga maqnaa kooxda. Waxa uu soo noqday ciyaartii Sabtiga ee FA Cup-ka ee khasaraha kala kulmeen kooxda Plymouth. Xidigan dadabka bidix ee difaaca ka ciyaara, inkastoo weli inuu kusoo bilaaban karay iyo in kale aan la xaqiijin karin. Ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara ee ay saaxiibada yihiin isku kooxdana yihiin Ben Mee ayaa diyaar u ah in uu asna markiisii ugu horeysay safto sanadkan 2025 kadib markii uu kasoo laabtay dhaawac dhinaca muruqa. Manchester City tababareeda Pep Guardiola ayaan weli go'aansan haddii Kyle Walker uu kusoo darayo safka kooxdiisa ee ciyaari doona iyo haddii kale. Xidigan ayaa dhowaan sheegay inuu isaga tegayo kooxda Manchester City. Rodri, Robin Diaz iyo ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo John Stones waa ay sii maqnaan doonaan. Haddaba haddii aanu eegno xaqiiqooyinka kulankan iyo is-araggii kooxahan, kooxda Manchester City waxa ay raadinaysaa guushii afaraad oo xiriir ah oo ay ka gaarto kooxda Brentford. City ciyaaryahankeeda Phil Foden ayaa dhaliyay goolasha hat-trick-ga si kooxdiisu ay uga soo kabato 1-0 hoggaanka looga hayay 3-goolna ay ugu badiso ciyaartan oo kale sanadkii lasoo dhaafay. Brentford waxa ay ilaashatay keliya hal mar shabaqeeda 7 ciyaarood ee ugu dambeeyay ee kooxda Manchester City ay ka hortagto. Kooxda Brentford waxa ay soo afjartay 4 ciyaarood oo aanay adkaan markii ay kooxda Southampton 5-0 kaga badisay ciyaarihii ugu dambeeyay ee kooxdani ay ciyaarto horyaalka dalka Ingiriiska. Kooxda City ayaa hal guul waxa ay haysatay 9 ciyaarood oo ay ciyaartay wixii ka horreeyay 3 kulan ee ugu dambeeyay ciyaaraha horyaalka. Manchester City 8-0 ayay kusoo adkaatay ciyaartii Sabtiga ee ay ciyaartay oo FA Cup-ka ka tirsanayd. 12 gool ayaanay dhalisay 2 kulan ee ugu dambeeyay kooxda tababara Guardiola. Pep Guardiola kooxdiisa ayaa khasaartay 4 ka mid ah 6 ciyaarood ee ugu dambeeyay ee horyaalka Premier League ay kusoo ciyaarto gurigeeda banaankiisa. Mar waa ay badisay marna waa ay garab dhacday. Safino ayaa ku lug yeeshay 4 gool 2 kulan ee ugu dambeeyay horyaalka Premier League, waxaana 1 gool iyo 3 caawinood uu ka sameeyay ciyaarahaas. Taasi waa falanqeynta kulan ciyaareed dhex maraya kooxaha Brentford iyo Manchester City. Bal markana haddii aanu eegno ciyaarta u dhexeynaysa kooxaha Chelsea iyo Bournemouth. Chelsea waxay soo dhaweyn doontaa kooxda Bournemouth, ciyaar horyaalka Ingiriiska ka tirsan oo la daawan doono 10:15 waqtiga Geeska Afrika. Chelsea ayaa xidigaheeda kale ah Romeo Lavia iyo Reece James ay dhaawacyo kasoo laabteen, diyaar ayayna u yihiin in ay ciyaaraan, waxaana ay wajihi karaan kooxda Bournemouth. Noni Madueke xidiga la yiraahdo oo seegay kulankii ugu dambeeyay ee FA Cup-ka isaga oo xanuunsan waa u diyaar kooxdiisa Chelsea. Bournemouth waxa ay ahaan doontaa la'aanta ciyaaryahankeeda Evan Nilsson kaasoo qalliin looga sameeyay dhaawac xidiga soo gaaray awgii, halka xidiga isku kooxda yihiin ee weerarka ka ciyaara Anis Unal uu isaguna sii maqnaan doono muddo kadib markii dhaawac uu isna soo gaaray isaga oo tababarka ku jira. Golhaya Keba Arrizabalaga suuragal ma noqon doonto inuu ciyaaro mar haddii kooxda milkiyadiisa iska leh ay kooxdiisu la ciyaareyso. Ryan Christie ayaa dib u soo laaban kara oo xanuun kasoo noqonaya. Xaqiiqooyinka kulankan haddii aanu eegno, kooxda Chelsea lagama badin 6 kulan ee ugu dambeysay ee ay kooxuhu iswajahaan. 4 waa ay badisay, 2 waa ay garab dhacday. Waxaa jira rikoodh Premier League ah oo 14 calaamadaha hurdiga ah lagu kala gudoomay kulan kooxda Chelsea ay garaacday kooxda Bournemouth oo ku dhammaaday 1-0 Agostadii lasoo dhaafay. Kooxda Chelsea waa guul la'aan 4 ciyaarood ee ugu dambeeyay. 2 waa ay garab dhacday, 2na waa laga badiyay.
marka la fiiriyo 5 ciyaarood oo xiriir ah oo bilaa guul ahna Chelsea waxay ku noqon doontaa arrin dhabarjaba. Taasina waa sheekada la xiriirta kulan ciyaareedka dhex maraya kooxaha Chelsea iyo Bournemouth. Bal markana kulanka xiisaha leh ee dhex maraya kooxaha Nottingham Forest iyo Liverpool haddii aanu eegno. Nottingham oo ah kooxda keliya ee ka badisay horyaalka waddanka Ingiriiska marka la fiiriyo, kooxda Liverpool ayaa soo dhoweyn doonta Liverpool oo gurigeeda lagu soo garaacay ciyaartii hore. Nottingham Forest waxay dib u heli doontaa ciyaartoydeeda joogtada ah kadib markii Nuno Espirito Santo uu 11 ciyaartooy ka nasiyay kulankii FA Cup-ka ay guul ka gaareen kooxda Luton. Danilo ayaa kasoo laabtay dhaawac soona galay ciyaartaas isaga oo bedela. Waxa uu kasoo muuqan doonaa ciyaartii ugu horreysay ee horyaalka Premier League tan iyo markii uu dhaawacmay ciyaartii koowaad ee furitaanka ee horyaalka. Ibrahim Sangare ayaa isna usii dhowaanaya inuu dib ugu soo laabto safka kooxdiisa. Liverpool ma heli doonto ciyaaryahanka Darwin Nunes oo hal kulan oo ganaaxa ku seegaya ciyaartan. Joe Gomez xidiga la yiraahdo ayaa ka maqnaan doona kadib dhaawac dhinaca muruqa oo xidiga soo gaaray. Tababare Arne Slot oo wax kale oo dhaawacyo aan sheegin, waxaase uu shirkiisii jiraayad ku sheegay in Nottingham ay ka mid tahay tartamayaasha horyaalka. Xaqiiqooyinka kulankan haddii aanu eegnana, kooxda Nottingham Forest ayaa eeganaysa inay dhammaystirto 2 guuloodlihii ugu horreeyay ee hal horyaal gudihiisa ay kaga gaadho kooxda Liverpool ciyaaraha labada lug ee la isku arko guri ka guri tan iyo 1962 iyo 1963, markaas oo ahayd markii ugu dambeysay ee Nottingham ay labada ciyaarood ee horyaalka wada garaacdo kooxda Liverpool. Haddii Liverpool ay khasaarto ciyaartan, waxa ay noqon doontaa kaliya markii saddexaad ee koox horyaalka Ingiriiska ciyaaraysa oo Premier League ah ay dabcan hal koox kala kulanto labada khasaare ee ugu horreeya ee horyaalka kasoo gaara. Manchester United ayaa Chelsea kala kulantay sanadkii 1993 iyo 94 oo labada lugba la wada garaacay, isla markaana ahayd kaliya labada ciyaarood ee ugu horreeya ee khasaare ay wajahdo. Newcastle United ayaa sidoo kale sanadkii 2022 iyo 2023 laba khasaare oo isku xiga waa labada khasaare ee ugu horreeya ee horyaalka kasoo gaaray waxa ay kala kulantay kooxda Liverpool. Liverpool hal iyo eber guul ah oo ay ku gaartay garoonka City Ground sanadkii lasoo dhaafay ayaa soo gabagabaysay 13 ciyaarood oo halka aanay kusoo adkaan, oo ciyaarahaas wixii ka horreeyay Liverpool 7 mar waa ay garab dhacday, 6 marna waa ay khasaartay. Kooxda Nottingham Forest ayaa waxa ay isku dayi doontaa inay barbareyso rikoorkii guulaha ee horyaalka ay ka gaadhay 7 ciyaarood oo isku xiga sanadkii 1979. Lama hubo in ciyaartan ay adkaan karto iyo in kale, mar haddii Liverpool oo careysan hogaankana haysa dhibcana lumisay ciyaartii ugu dambeysay ee ciyaaraha horyaalka ay dabcan wajahayaan. Liverpool waxa ay la ildaran tahay 2 khasaare oo soo gaaray 30 kulan ee ugu dambeeyay ee tababare Arne Slot uu hogaaminayo. Mid waxa ay ahayd ciyaartan laftirkeeda oo September, kulan labada koox dhex maray 1-1 Nottingham ay kusoo adkaatay. Reds ayaa waxa ay ogolaatay in ay ka dhashaan 11 gool 6 ciyaarood ee ugu dambeeyay, marka loo barbardhigana 8 gool ayaa laga dhaliyay 13 ciyaarood ee kasii horreeyay, taasoo hadda u muuqata xoogaa in difaaceeda culays ka jiro. Salah ayaa 30 gool ku lug yeeshay, 18 uu dhaliyay, 13 uu caawiyay, waxaana ay noqonaysaa rikoodh horyaalka Premier League 19 ciyaarood ee ugu horreeya ee horyaalka cidina sidaas ma aanay samayn. Cody Gakpo ayaa dhaliyay 3 ciyaarood oo xiriir ah oo Premier League ciyaarihii uu kasoo muuqday markiisii ugu horreysay. 16 ka mid ah 18 gool ee Mohamed Salah ee xilli ciyaareedkan ayaa yimid qaybta dambe ee ciyaarta. Taasi waa falanqaynta kulan ciyaareed dhex maraya kooxaha Liverpool iyo Nottingham Forest oo ka dhacaya gegida kooxda Nottingham ay ku ciyaarto. Ciyaarahan marka laga reebo kulanka Liverpool oo isagu 11ka caawa la daawan doono, waxaa ciyaaraha kale ay dhacayaan marka ay saacadu tahay 10:15. Kuwaasi waa ciyaaraha Premier League maanta ka dhacaya. Waad ku mahadsantihiin daawadayaal la socodkeena. Subscribe-ka noogu dhufta YouTube-ka. Waa Muuse Xusho oo idinkaga tegaya nabadgelyo.